kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan iyo suuba oo noo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal xiiso badan. wareen YouTube-ka uu cusub yahay subscribe saar. marka aad muuqaalka daabatana comment ka bixi si ay dhiirigelin u noqoto. share garee, like dheh. muuqaal qurux badan ayaan inay wadaa. muuqaalka wuxuu yahay caawa reaction ayaa bixi doona insha Allah. reactionkaas waxa uu noqon doonaa fanaank weyn qadarkeeyo aad ogsoonadeen in dhawaan lagu xiray dalka Ethiopia isagoona laga soo deeyay toddobaadkii la soo dhaafay. waxaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyadoona ay soo dhaweeyeen xildhibaano iyo sidoo kale dad maqaam sare ku leh gobolka Banaadir iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. haddaba waxaad la daawataan muuqaalkii ugu soo dhaweeyay qadarkeeyo intii ugu xiisaha badneed isla markaana aan ka soo koobay. okay telefoonka sana miyaan ka marmaa Muqdisho caday minid qura ka maqnan karaa miyaan ka marmaa Muqdisho caday minid qura ka maqnan karaa qadarkeeyo Muqdisho ay u xiisay maadaama Ethiopia inta lagu qabtay xoogaa la siisiyay. waad garan kartaa Ethiopia waa dal aad iyo aad u adag isla markaana laamaheeda sirdoonka ay aad u adag yihiin. qofkii ay gacanta ku dhigaanna ay gelinayaan xabsi kadeed ah isla markaana hal qof loogu talagalay. Ethiopia sidaan ogsoonahay iyo Soomaaliya inkastoo hadda muddooyinka ugu dambeeyay xiriirkooda uu yahay mid xoogaa iska wanaagsan laakiin waxaa ka dhexayso cadowtinimo soo jireen ah. halkii qof ay qabtaan oo Soomaali ah asxaan ma falayaan. marka qadarkeeyo xoogaa waa la soo qashqashaad waa la soo kurkurin Muqdisho xiiso uu qabo. Muqdisho caday miyaa ka maaran karaa maya waa jawaabta waa garta bal ilsi daawada muuqaalka. qadarkeeyo isaga waa soo dhisay yaa si qurux badan loo soo dhaweeyay sida isaga isku soo dhisay si kasii qurux badan. miyaan ka marmaa Muqdisho caday minid qura ka maqnan karaa miyaan ka marmaa Muqdisho caday minid qura dadka aad arkaysaan oo soo dhaweynaya hadda qadarkeeyo waa haweenka u badan waa haweenka gobolka Banaadir. galgacayl ah waxaa lagu soo dhaweeyay niyad same isagana farxad ayuu dareemayaa sababtoo ah waxaa soo dhaweeyay
haweenka gobolka banaadir waxaa sidoo kale goobta aan ka marneen xildhibaano oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dad maqaam sare ku leh gobolka banaadir iyo guud ahaan Soomaaliya bal aan sii wadno muuqaal qadarkeeyo intaana kaga filan xabsiga Itoobiya qadarkeeyo intaana kaga filan waa xaqiiq sababta qofka bini'aadamka niyadiisu jilicsan tahay sida inta Itoobiya dhibtii balaayadii iyo wixii uu ku soo maray intaan markii Muqdisho loo sameeyay oo sidaan ay u soo dhaweeyeen dadkiisa jacayl wixii fogeed waa inuu macnaheedu sababtoo ah qofka bini'aadamka ah haddii si wanaagsan si qurux badan sigal jacayl haddii loo soo dhaweeyo intii hore wuu iloobayaa marka qadarkeeyo waxaan filaa in intaan ay kaga filan tahay xarigii ay u geysatay Itoobiya inkastoo fanaan weyn oo boos uu tahay qadarkeeyo fanaaniinta caalamka oo agtooda la soo istaagi karin meeshii ay marayaan laakiin anaga xoogaa maadaama muddo badan aan burbursaneen weli macnaha siyaasaddeena biseel maahan cid kasta waan u fududaanay كتب الغاليين هيس أروس مهنو وهيس أروس تاسوغيني هاي عادي صوصو هاومي جين 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 تاسوغيني ها أروس يا صاحبي يا خدركيو سي أروس ما نوصل دوينو يا سي داون وحكى معهن وفرحدة فرحدة وحيلقى الشيء ayaguna wax ku ahay maanta ama ha joogaan halkan aan hadda xaadirka ku ahay ama ha maqnaadaan social media qaar aan soo gaarin
markan soo koobo marka saxaabadii hadda ku sii hayay wuxuu dhahay rafaadkii iyo wixii dhibti waan iska ilooy waa sax waa sida hore idinku sheegay qofka bini'aadamka ah haddii uu dhib soo mara oo galgacayl iyo farxad lagu soo dhaweeyo intii uu iloobayo sababta dadkiisa soo dhaweeyay gacmo furan loo soo dhaweeyay qalbi furan loo soo dhaweeyay naxariisa loo muujiyay waxaa la tusi inuu yahay fanaan Soomaaliyeed waxaa la tusi inuu yahay fanaan la aqoonsan yahay lagu tishanayo waxaa la tusi in laga warqabay xaragiisa wax walba oo loo geystay qofku qancaya laakiin haddii laga seexan lahaa oo laga fadhiisan lahaa oo maad iska soo degan lahaa gurigiisa iska aadi lahaa xoogaa wax baa gali lahaa laakiin taas waa laga saaray qadarkeeyo waa xaqiiq farxad iyo weji furan iyo sidoo kale inuu yahay fanaan qaran ayaa la tusiyay waa meesha ugu habboon waa intii loo sameyn lahaa qof bini'aadan ah ومازلتين كمان وحن كمان الغروب والسلامين حتى يجيك على حتى يعني يقدر ما تشرح وحن بعدين وفات الوقت بعد سوى أحسن ما تقول هذا سكين نودلز sababtoo ah soodhaweyntii waxaa la duuli karaa haweeney magaalada korona kale ku hadcelinaya saaxiibkii hadda koronaha shirmada xamartito asagana lagu martiqaada halkan sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada waxaa kaloo boorka ugu soo dhaweeyey cabdifita sawi isagana khidmada ugu soo dhaweeyey markaan soo kabo marka wixii mahaddan u sugnaatay ku وما سهل بقى أوروبا حاجة كان سنتايو رجال هاي aad ugu dadaalay inkastoo dad badan ay dadaalayeen haddana wuxuu ku jiray nidaamka dadka firfircoon kaan mugli ka geystay in qadarkeeyo badnaanka Soomaaliyeed u diyaar u yahay qof walba Soomaaliyeed meel alaala meesha joogay inuu gaarsiiyo wax u qabto waxaana leenahay in waajib oo joog nadiif كمان شعبي الصومالي ويرجعوا هاي من الوجودان قف والبو الصومالي okay fiidiyowaas waxa uu ahaa fiidiyo koobnaa aan uga hadlaynay soo dhaweyntii loo sameeyay oo quruxda badneed qadarkeeyo ay kaalin mug leh ka qaateen haweenka gobolka Banaadir
iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda heer federaal iyo sidoo kale hadii aan leed heer maamulka gobolka Banaadir ay maanta soo dhaweyn kala kacsan ugu sameeyeen qadarkeeyo Muqdisho ayaan halkaas ku soo gabagabeynaa waxaan idin codsanaa YouTube-kan waa YouTube cusub waa YouTube aan rabo in aan ka gaaro meel wanaagsan meel macquul ah meel fiican waxaan idin codsanaa in aad subscribe saartaan like share comment aad ka bixisaan si comment-gaas uu noqdo dhiirigelin keep going aad ilaahay macnaha hore u soco sababtoo ah waayahan waxa socotaa keep going أنا محاير يا مركب وحد هذا keep going بدبادل واد ما سنتي